and the most important thing marka guriga wax ku beeranayna ay waxay tahay biyo nafaqo iyo iftiin. Those are the three things oo muhiim ah marka guriga wax ku beeranayno. qaraabo hadii one inspiration video net ay ka qaadanaysiina waxay tahay in aad no matter meesha aad degan tahay apartment mise guri dhul leh hadii aad degan tahay no matter meesha aad degan tahay guriga waa ku beeran karnaa. السلام عليكم قرابة وسلامتهن مال البقى جوكتان كسو دوادا بيرتيدا Somali Gardener and ما شاء الله update دارا بمانت إنا نسيو and فيديو مانت وحكو سابسنانا يعني نيضانيت ميشانيت كبحيصة يو spinach او غوريق نوغو بحاي هدرتان وقتيا هدا كجرنا بدنا معلمهانيت او فيدياش بدنا اسوساراي وحكو هاي برفا صو سعود وكنا هاي برفكي واجوغا مانت سفي عنو نوغو دقويا maanta waxa video wuxuu ku saabsan yahay apartment gardening and masha Allah at least 2 months ago amalena waxaan itusay nyaanyadaanit ano mise 2 to 3 months ago nyaanyadaanit aniga oo dhaladaanit ku beerayo iyo aniga spinach beerayo spinach kan isoo laabana meesha dhiganayso tusaa كاهي شغالوس لكن بلا ما شاء الله so قرابو هالكان وحا ايغو بيران نشان هالكان سبينش ايغو بيران and عاقانيت وحاوا عاق او storage كه داركي كواياشي حافشكا لو اروسدا فرو ليهي and different colors ay ku imaadaan but like anu waxaan doortay mid oo clear ka ah because waa arkaya hidadii arkaya carrada markay qallalan tahay arkaya iyo waxa kale oo arkaya markii furka aan ku daboolo especially markii mirihi kow ay soo baxayeen greenhouse amal oo noqonaysa so mashallah this is the video maanta wuxuu ku saabsan yahay the update iyo sida u fududahay markaan guriga waxa ku beeranayno hadii oo dhul weyn aan leedahay badana videoyaasheedu waxaan dhitusaa aan banaanka wax ku beeranayo and hadii apartment adegan tahane for example apartment oo barakon hadee leedahay iyo barakon hadee lahaynba and guriga waxa ku beeran karnaa guriga. Okay, this is 7 days exactly since I planted the seeds. Inshallah, in the very near future, meeshaanayta barakon kaanayta aan qudaar aan kasoo dhigi doona oo waxyaalo meeshaan la dhigi doona hadeertaan for now qorraxda yar oo inta kasoo galayso ilaa halkaan ay soo gaaraysa qorraxdan ma arkano uga faa'iideysanaya barafka markuu gaaro in ay ma arkano qudaartii especially spinachkii cagcagaar kala nooc meeshaanayta gurigiisa ku beeranaya qorraxda darashada mise barakoonka ee soo dhacaysa albaabkiisi intaas wax ku beerna insha Allah. qaraabo hadii one inspiration video net ay ka qaadanaysiina waxay tahay in aad no matter meesha aad degan tahay apartment mise guri dhul leh hadii aad degan tahay no matter meesha degan tahay guriga waa ku beeran karnaa aniga ogtihiin you know only 4 months kaliya banaanka wax ku beeran karaa barafka dartiisi iyo qabowga dartiisi inta kale to gudahi laga rabaa inaan ku beerto so I have to think about maxaa guriga gudihiisa aan ku beeran karnaa aan xiiseynana easy inuu yahay. Okay qaraabo spinachki halkaan sidaan uu eg yahay masha Allah and carro badan uu ku jiraa sidaan aan arkino aan uga arkaya and masha Allah caleemaha ugu horhoray oo soo baxaayo waa kuwana kabacdi waxa arkaysaa waxa soo hoos baxaayo caleemo kaleeto which ka fiican example kaanayte kan adartan it has 4 leaves kan wuxuu leeyahay 4 leaves uu leeyahay kuwan dhexda ku jira waxa la dhahaa true leaves la dhahaa so spinach kaanayte markaan beerayo safsafka sidaan aan u beeray
and qaarkood halkaanayta kama soo bixin waa ujeedin everywhere caleemo dhan kama soo bixin laakiin badanaa si fiican u soo bixeen hadeertaan haddii oo spinachkaanayta banaanka u ooli lahay waxaa guran lahay within 1 month but laakiin guri gudihiisa the temperature is different maxaa la dhahaa hawada is different dhulkii carradiisa is different banaanka so there's a lot of difference markii guri gudihiisa waxa ku beernaysid waqtiga ay wax kugu soo baxayaan iyo banaanka marka wax ku beernaysid waqtiga ay wax kugu soo baxayaan I felt like nature banaanka marka ay wax ku beerto it's a lot quicker and maybe because badanaa banaanka marka wax ku beero every day ma arkay laakiin gudaha marka wax ku beeratid hore every morning every night waa arkaysa kaas maanta dhan waxa dhahaysaa horta bil dhan soo dhaafto wali wax ma arkooy so maybe waqtiga aan arkaayo qudaarta iyo waqtiga aan arkaynin banaanka markay kala yaalaan so anyways and spinach kanita masha Allah si fiican u buxooya alright nyaanyadaanaytana sidaan ay u eg tahay rafaada haayo horta and it's been I think 3 months ku dhowdaha umaleena nyaanyada ka horeysay spinachki nyaanyadana badanaa waxay u baahan tahay hot humidity weather u baahan tahay meeshaanaytan iftiin fiican ma siinin qoraxda ee u baahan tahayna ma siinaynin waxa kaaga sii darana nafaqo ma siinin oo loogu talagalay in ay markaysa u sii korayaan so anyways nafaqada ay ku imaaday hadeertaan u qasqasaya ko hadeertaan siinaya waxaa kaloo sameyn doonaa nyaanyada way weynaan doontaa ma ogtahay so hadeertaan koombadaana yeerta ee ku jirto caleemihii ujeedin waa soo laalaadmi doonaan so waxay u baahnaanayaan support system mise trellis waxa la dhaho u baahnaanayaan banaanka I have a lot of ways oo dhulkii oo staking ku sameynaa xarga kula xirxir lahay laakiin meeshaan dhulku ma beerno so waxaa laga rabaa one way to support caleemahaanayta in a different video markay soo weynaadaan kasto aan ka hadli doona waan tusaa markaan sameynayo before now meeshaanayta nafaqadaana ku shubaya insha Allah caleemahan rafaada hay wala saacadan camal banaanka haday ooli lahaayeen waxa ka taagtaagi lahay sida straight ay u noqdaan but laakiin tan waa laga shaqeyn doonaa next waxaa rabaa inaan siiyo nafaqadii aan u qooyay biyo ooga dhigay one way carrada ka fiirin kara inay qoyan tahay in kaleeto isba obviously banaankan ka arki karaa maalin dhaweedaan carradaanayta biyo siiyey so sidaasay ta qaleel uma aho laakiin it needs a little bit of water fartana waa gelin kartaa carradaanayta way madowdahay so that means way qoyan tahay carrada oo meeshaanaytana waa aragteen oo maleena badana marka wax beeranay carradeena halkaanayta way madowdahay markay qoyan tahay way madowdahay you can feel it laakiin markay ay qaleel ay tahayna dambas camal way kaaneen geedkanaytana waxaa laga rabay in aan ka taago anaa la daaha ma ahane markii ay caleemahanayta soo yar weynaanayeen aa lay dhahay ka taag sidaas ugu dhaafeynaa so maasha Allah waxaa la rabay inaan tuso how easy it is guriga markaa wax ku beeranaan wallahi banaanka markaa ka shaqeynaysid waa dhidideysaa maanta dhan waxaa ka fikiraysaa xagee ku beeraa shaqadii cooskii all these problems ka fikiraysaa laakiin guriga markaa waxaa ku beeranayno waxaa la ka fikiraysaa koombada size ka isticmaalaysaa carrada isticmaalaysid iyo nafaqadii mise mirihii ay isticmaalaysid and the most important thing marka guriga wax ku beeranayna ay waxay tahay biyo nafaqo iyo iftiin those are the 3 things oo muhiim ah marka guriga wax ku beeranayno nyaanyadii si fiican iftiin badan uma siinaynin badanaa waxaa ag dhigayay albaabkanayt oo barakoonka qoraxda ka helaysay and barafkii bilaawday soo qoraxdii si fiican zaid u yaraan doontaa which is why nal extra supplemental light siin ay la rabaa meeshan there are different light systems aan isticmaali karnaa kuwan waxaa waaye alaara it's a little bit fancy but laakiin kala nooc light iyo kala nooc jiraan ay isticmaali karno let me show you ko kaleeto aan spinach aan u isticmaalo oo clamp light la dhahaa kana isticmaala kana iska damiya badana spinach kana u isticmaala iftiinkiisa both of the lights iftiinkooda
wuxuu u qalmaa or closer to iftiinka looga baahan yahay oo nutritionka ay ka helayaan qoraxdii. So obviously qoraxda iftiinkeedii iyo nal iftiinkiisa isku mid ma noqonayo, laakiin equivalent waxay dhahaana jiraan. So it's gonna be closer to but it's gonna be wax loo baahan yahay. So anyways, nalkaaneta isticmaalaya sakan wuxuu ku fiican yahay meel walba aad taagan tahay mise meel walba aad joogtid aad kula qabanaysaa. So caaga oo spinachka halkaan oo maalmahan saarnay because nalkii halkaan ugu jiro. Okay, sidaan uu noqonayaa. Okay, so mashallah sidaan uu ahay.